gabadha TV-ga ma wada daawatan inka weyn wuxuu TV imika la daawado TV la daawado maxaa ku dhex jira romantic baasha ka dhex raadinaysa muxuu yahay TV la daawado mid baan ku sheegayaa ma fahansanida aan ku fahansiyo hadaba casharada iga qaadaniyo ma garata gabadha fadhigan aan ku fadhiinta lagu wada fariisto TV-ga iyo wax halkaan TV-gu yahay wuxuu doonaba barnaamijyo khaldan hadii ku jiraan waad iska saari kartaa la khasamaha TV-ga inaad gabadha TV-ga wada daawataan sidaas taa wada jiifsataan ila halkaas u jiifsataan saar TV-ga wada daawataan meeshii qosla ku wada qosashaan meeshii commentiga ka wada bixisaan maxaan ku raahdaa markay meel qosla soo marto ku wada qosashaan meel kadeeda ma garanaysaa waan romantic iyo farxadda guriga niyo waxaad fahansantahay ma laha niyo muwahalanta adiga ya billah hada aniga mar habeen markay tirado kaal TV-ga daawanay nacamalaanta waa ka badatay soo seexan raadaan ya so TV-ga xitaa uu kaalay romantic baasoo la sheego soo meel kaasoo laga dhex raadin karaa sariirta iyo xaggaasaan bamooday soo romantic waa farxadaba wallahi billah qoriyo iskuul romantic waa inaan imika aadaniyo gartay maxaan ku leenahay gabadha ina TV-ga wada daawataan waa nolosha maxaan ku raahdaa ay asalkeeda niyo wana garatay war waxaan ku weydiiyay wad ku mahadsantahay inaad dhamaysato part 7 ama qaybtii 7 part ina English isticmaalo wax soo khalad laakiin de part dadkii oo dhan baa part qaybta waxa laga yaabaa dadku hadda tirada qaybta koowaad qaybta labaad inay dadku si fiican fahmin war marka part 7 part 8 baa kugu soo socday la soconayo iyada ka xiiso badan follow lofta iyo share iyo subscribe ilaawina nagu caawiya ilmaad xaasid laba noqdee wadina kan maxaa ka khaldan iyo gabadhan